asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada bartaynu ku leenahay youtube-ka ee caawiya youtube maanta waxaynu samayn doonaa vlog waxaynu duubi doonaa vlogan waa vlogii ugu horreeyay aan duubayo waxaynu ku bixi doonaa Goonya gobolka aan joogo ee ku yaala Turkiga waxaan aadi doonaa mid kamid ah degmooyinkiisa degmada u socona waxaa loo yaqaanaa Akshiir haddaba vlogeen wuxuu ka bilaaban doonaa meesha aan ku barto luqadda Tomer loo yaqaano Seljuk University markaasaan ka bilaabi doonaa insha Allah marka anigoo bixiro vlog duwar asxaabta arkay sida ujeedaanba asxaab kala duwan meesha taagan waa yar Yemen ka imaaday mid Ethiopia ka imaaday mid Suudaan ka imaaday sidoo kale yar Ghana ka imaaday iyo waxa ujeedaan yar Kyrgyzstan ka imaaday marka luqadii ku sheekaysan waa af Turki meesha ka bixinayna waa meeshan safarkeena meesha ayuu ka bilaaban doonaa Seljuk University Tomer marka isla socod wanaagsan insha Allah sidoo kale intaan bixin ka hor anoo meesha joogo waxa arkay yarkan artist waa asigana waa Suuriyan Cabdikariim la yiraahdaa marka wuxuu sawirayay Tomarka ama meesha luqadda ku barano sawirayay aad ayuu fartiisa iyo sawirkiisa aad ayuu u fadhidaa marka waxa dhaa video ka duubanayo waxa kala kiciyoya vlog marka wuxuu yiri diyaar waay marka vlogga asigana ku soo qaadanay marka asxaabtan kale ta arkayadane waa Ustaad Umar iyo sidoo kale Cabdi Jabar waa kana meeshan ku sheekaysan waxa dhahay vlogga duubaya ayagoo sheekaysan wax yar ku soo dhaxdaray marka akhayrtan Soomaali wadada ayaan galnaa hadda waxaana sii socon doonaa meesha u socon waxay noo jirtaa adiga muddo saacad iyo 50 daqiiqo noo jirtaa adiga 4 saac miya aan baxnay waxaana tagnay adiga 5 saac iyo 50 camal meeshaana wax yar ku nasanay yarkaas waa idin salaanta ka qaada meeshaana ku nastay break yar ku galnay asxaab waliba baahiyaadkooda soo dhameysteen wixii biyo ah wixii buskut rabay iyo wixii masquul rabo meeshaana waqti ku soo qaadana wax yar deedna waxaan sii wadna markaasi safarkeena marka haddaba si fiican ila socda meesha aan u socno tolow maxaa ku soo arki doonaa Akshiir la horta meesha u socno Akshiir labo kelime ka koobanta waa ag oo white ah iyo shiir oo magaalo ah magaaladii cadeed waa dhihi karnaa marka meeshan aan u socno waa meel uu ku noolaa nin la oran jiray Juxa Soomaalida aad ayuu taqaanaa aad ayuu ku qosliyaa meeshani waxa ku noolaa jira ninkaas loo yaqaan Juxa laakiin Turkida waxay u yaqaanaan ayaga Juxa uma yaqaanaan Nasruddin Hoja ee dhahan marka taariikh ahaan dadku iskhilaafaan Juxii oo naqaana miya mase waa Juxa kaleete laakiin taariikh ahaan waxay ku soo khulaaseeyaan oo warkii oo kooban oo koombo ku jiro hadii aan idin geeyo laba Juxa ayaa jirtay Juxaan waxa loo yaqaanaa Juxa Turkiya iyo Juxa kaleete jiray Juxay kaleete wuxuu noolaa xilligii taabiciinta Juxahan kale oo Turkida u taqaan Nasruddin Hojane waxa loo yaqaanaa Juxa Turkiya marka waa nin caalim ahaa sidoo kale wuxuu ahaa nin aqoon badan filosoofna uu ahaa macallinna uu ahaa dadka diinta iyo bari jiray marka si oo dadka markaas waxa kale lagu tilmaamay waxay dhahaan waxa halka filosoof macnaha filosoof bulsheed ayuu ahaa marka waxyaabaha la isugu qaldo inay Juxahan uu yahay kii horeetay iyo midkan Turkiga Nasruddin loo waxyaabaha la isugu qaldo waxa kamid ah labada Juxe waxa lagu yaqaanaa dameerkii wataan shaqooyinku waa isku mid waxa u maleysaaba inay hal qof ay isku yihiin macnaha dhacdooyinka wixii dhan waa isku mid laakiin taariikhan dood ma ka taagno Juxaha Turkiga inuu jiro waxaana loo yaqaanaa Nasruddin Hoja ayaa loo yaqaanaa Juxaan marka meeshaas aan tagnay qabrigiisa tagnay faataxan soo aqrin insha Allah arki doontaan hadda waxaan saaranahay wadada qaybta horan soo fariistay shirka si afiidigan quruxda badan idin soo gaarsiiyo marka waynu ku dhawanahay meesha u socno marka ila socda saaxiibayaal marka hadii aan u laabano Juxahan ama Juxa Turkiya dheh ama Nasruddin Hoja aynu dhahno macallin Nasruddin waa Hoja macallin ay dhahan ama orodmaan ay dhahan Turkida marka Nasruddin Hoja hadii aynu ka hadalno wuxuu ahaa nin aqoon-yahan caalim ah sidoo kale waxaan tagnay masaajidka ku duka jiray waxaanu tagnay meeshuu fariisa jiray oo maqaayadu shaah ka cabi jiray iyo meeshuu ku noolaa jiray marka meesha tagtid dadka caadiga ah waxay u arkaan in Akshiir ama dadka degan magaalo caadi u arkaan laakiin anaga waxaynu u aragnaa inay tahay meeshii xikmadda ay ka soo burqatay qisooyin badan waan maqalnaa inkastoo markii dambe laga sameeyay sheekooyin iska mana awaal ah oo Soomaalida tiraahdo hebel asaan yiri nin asaan yiri marka mar walba oo wax qosol la sheegay waxay noqotay in la dhaho Juxa asaan yiri markaas waxyaabo dhahay waxyaabo dhihin in la isku daro waa dhacdaa marka qaar laakiin wuxuu ahaa marka dambe wuxuu noqday asaadiirul awwaliin ay ka dhigan dadka macnaha sheeka baraley ilaa ay gaarsiiyeen heer oo Juxa inuusan jirin ba ay dadka qaar aamineen laakiin Juxa wuxuu ahaa qof jiro oo xaqiiqi ah oo caalim ah oo aqoon badan marka aqoontiisa wuxuu u gudbi jiray sidii culimada markaas jirtay si ka duwan oo u gudbi jiro macnaha xikmad uu ku dari jiray qosolna uu ku jiri jiray hadda falsafada hadda jirto ama adduunka waxa la isticmaalaa waxa loo yaqaano historicalka ama taariikhda marka la sheekayo ama qof marka laga hadlayo qofka marka uu sheekayo haduu dhaho hebel aa dhashtay hebel aa dhintay falan meeshaan ay ka dhacday intee ka dhacday fulan haduu ku dhaho waxa macquul ah inaadan aadan u qaadan ama warkaasi uunan ku wada gelin laakiin hadii uu qosol kugu dhex tuuro
wax yar shactaro kugu tuuro xigmad kugu tuuro waxay u badan tahay inaa qofkaasi markaas dhayso allah allah walaa qalbigii wala tagay aadaan ugu helay aadaan u dhacay marka qofka markuu qoslo oo afka kala furo xigmada lagu tuuraa xigmadii markaas toos qalbigiisa u dhacay marka sidaas uu sameey jiray waa imaan magaaladii waa kana Agshiir ku soo dhawaada magaaladan quruxda badan waaye waa kana ujeedaan haykalkana laga sameeyay sidii marka aanu duubay gabar Afrikaan soo dhaxgashay ku daraada fiidiyowga soo gal waa kana haykalkiisa ujeedaa haykal kale quruxda haykal waliba hoostiisa waxa ku qaran qiso ayadana waa soo sawiray marka qisooyin aad u cajiib ah leeyahay hadii aad rabtaan ayagana barnaamij kale idin soo sameeyaha qisooyinkaas waa idin soo wadaagi doona marka waa kana asxaabta waa kana yarkii waa ujeedaan macalinkan Ustaad Yashaar la cimrigiisa Allah dheereeyo luqada Turki dadkana baroor kamid yahay marka video sawir ma qaado soo dhamay YouTube kala kiciyo video duubaya dhahay marka soo dhawaray ugu dar Soomaalida ay aragto marka waa kana hadda waxa u soconaa beertii oo ku dugnaa markaasi Nasruddin Hoja ama Juha Turkiya ama Juha oo ku dugnaa waa kana marka insha Allah wax yar waa gali doona qabrigiisa qabriyada kala xoogaa dhismahan uu ka duwan yahay si Turkida waxay aad ugu duwan yihiin dadka kale ama wadamada kaleete sidii qabriyada u dhigaan taariikhda si weynayaan waa ujeedaan bismillaahir rahmaanir rahiim aliyasi waladina ya'lamuuna waladina la ya'lamuun miyaysimeeyeen markaasi ku wax yaqaan iyo ku wax aqoon ma sinno waa wada ognaa midaas dhanka kalena waxa uu qoran aayad kale oo Quraan ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la yahzanun marka waa in u duceeyna adigana u duceey wax yar macalinka inta taariikhdiisa bilaan kor waa u duceeynay Allah u aqbal Allah ajiibo cimrigiisa waxa waa soo qaatay waxa waa naga qosliyay in badan xikmado uu nooga tagay marka anagana hadda wuxuu noogu baahan yahay waa duco adinkana u duceey insha Allah marka macalinka wuxuu nooga hadleen wax yar marka duceysana kadib taariikhdiisa oo nasiiyay Juha xilligoo dhashtay xilligii uu geeriyooday waxyaabihii uu ku noolaa iyo sheekooyinka laga bedelay iyo wadamada kala duwan magaci u yaqaanaan wadan waliba oo adduunka ku yaalo Juha uu yaqaana magaciisa uu gaaray waliba xilli oo internet jirin uu gaaray sheeko aan uu gaaray laakiin waxa kala duwan magacyada u yaqaanaan wadan waliba magac gooni u yaqaana marka taariikhdiisa oo wax yar macalinka nooga sheekeeyay xaqiiqatan bulshada islaamka Juha wuxuu ahaa nin aad saameyn ugu leh kaliya bulshada islaamka ma ahan qof waliba oo markaasi qofnimo ay ku jirto ama dhaqan ahaan ama markaas insaani si guud marka u hadlayno insaanimadana wuu saameeyay diin ahaanna wuu saameeyay marka macalinka wax yar wuxuu nooga hadlay macalinka nabado waxa waaye hogaamiye ahayo meeshana tutusay qisadiisa iyo nooga sheekeeyeen marka qiso aad u cajiib oo ahay marka saaxiibayaal Juha waa taqaanaan waana ka warhaysaan taariikhdiisa oo dhameystiran sidoo kale meeshan hadda joogno markii laga hadlayo Agshiir ama Konya ama si guud Turkiga meeshan waa meel dawladda Turkiga waa ama wadanka joogno waa wadan aad saameyn u leh sababtoo saameynta u yeeshteen wax kala maan waxa sharaxad yaraan galina ugu wax kala maahan adduunka afar dawladood oo waaweyn oo markaa soo jirsada meeshan ka talisay mid koowaad waxa dhihi karnaa dawladdii Roomaanka Turkiga si guud ay ugu talisay waa taqaanaan Istanbul ayada laga qabsaday sidoo kale waxa meeshan ku noolaaday dawladda Salaajiqa dawladda loo Salaajiqiinta oo Alba Arsalan iyo hogaamiyaasheedu kamid ahaa garabkii midug oo waxay ahayd dawladda Al-Abbasiya sidoo kale meeshan waxa ka dhismay dawladihii islaamka ama dawladaha guud ee adduunka marka la dawladii ugu taariikhda dheereed 6 qarni 7 qarni ku dhawaad dawlad asaasnay dawladda Cusmaaniya ayadana meeshan ay ka talinaysay marka Konya hadda gobolka joogo dawladda marka la dawladda Salaajiqa waxay u ahayd caasimad laakiin markii loo dawla al-Cusmaaniya waxay u ahayd gobol kamid ah goboladeeda waliba gobolka ugu saameynta badan dhankii dhaqaalaha ay kadibna waxaa imaaday markaasi dawladan hadda jirto oo loo yaqaano jamhuuriyadda Turkiga ama marka qabriga saa u jeedaan waxay meeshan sharaxad galo qabriga hal dhinac uu ka xiran yahay waa u jeedaan Soomaan hal dhinac hadda arkaysan dhankan birtaas lee uu ka xiran yahay bis inta kale waa furan yahay dhinacyada kale marka waxa macalinka waxa weydiinay dhinacan maxay looga xiray marka wuu noo sheegay wuu noo faa'iideeyay wuxuu yiri dhinacaas la xiro waa xumaanta dhinacyadan furan waa wanaagii waa sadaqadii waa qeyr sheegi waa caawintii dadka waa gargaaritaankii waa hadaladii macaana marka hal dhinac oo sharo iska xiray marka dhinac sharta da iska xirto intaasoo wado oo qeyr ah ku sameey kartaa jirto marka qeyrka waa u furan marka asxaabtu waxay leeyihiin sawir xasuus ah meesha ku galno sidoo kale meesha aan taagana hadda gabadha yarka artist waxa loo yaqaan Turkiga waxay dhahan dunyaanin ortasid adduunka markii laba loo qaybiyo dhaxbartamihii adduunka meeshan waaye ayagana kuma tilmaamin waxa ku tilmaamay Nasruddin Hoja meeshan aniga naftirkay meesha sawir xasuus oo ku soo galay marka qabrigiisa waa kana waxa waa Allah u naxariisto Rabbi subhanahu wa ta'ala jannadiisa ku irsaaqay dadka hore dhintay anagana meesha u socnaa waa meel dhab ah meesha kaliya waxa kaliya hubna inaan tagayno waa godkaas waaye laakiin waa isboojeehna adduunyada xoogaa hirikiriga ku jirnaa
marka waan kasoo tagnay waa taqaanaa qisadii juxo waa taqaaniin asoo geed saaran waa kana maamooyinkan iyo ilmahooda waa kana qof waliba meesha inay imaatay xasuus ka reebanaysaa oo heykaladan waxay u samaysan yihiin horto ma ahan dadka badan waxay leeyihiin sanam waay iyo waxaas inay ku fikiraan macquul heykalkan xasuus ahaan iyo laga wada oo kaliya turkidana aad ay ugu badan waa sida Soomaalida oo kale sayidka oo kale waa u samaysan tahay laan ayadoo daljirka dahsoon xaabataak oo kale waa samaysan yihiin qaar heykala leeyihiin qaar malahan sawira saaran marka waa soo baxnay kadib waa kana wax yar macalinka hadana meeshaan oo nooga warama taariikh ahaanteeda kadib waxaa tagnay guri kamid ah guriyihii horeete oo markaasi dadka horeete xilliga hore dabaqsi u dhisay jireen meesha alwaaxyo yar oo jaranjarta waa alwaaxyo ka samaysan tahay yar marka kana meeshaan quruxda badan degmada waxay ku hareeraysan buurtaas quruxda badan arkaysan fiidiyoyadan mobilkayga ku soo dubay marka waa idin gaar galiya hadii oo si fiican idin qanci waayaan maadaama ay tahay faloogi ugu horeeyay noloshayda inta nolol faloogi ugu horeeyay duwaay marka yarkan waa Suudaanis waa saaxiibaan ahnay Muzamil Allah marka wuxuu dhahay saaxiib sawir iga qaad marka fiideo dhag ku siiyay sidoo kale waxaa tagnay meesha hadda u jeedaan sawirada yaalaan waxay ahaa jirtay xilligii horeete Romanka kaniisadii ahaa jirtay hadda waa laga bedel waxaa laga dhigay meel artist lagu soo bandhigo ama madxaf laga dhigay ama markaasi madxafka qaranka waa taqaanay madxaf arawa asalkiisa marka meesha sawiro aad qurux badan oo waxa way soo jiita meesha ku arkay waa kana guriyaha ahaado qaar waxa ku jiro oo farshaxan oo gacanta qaar waxa ku jiro oo camera lagu qaaday tamaaman waxay ahayd kuwa aad u cajiib ah 200 ilaa 300 ku qiyaasaya oo sawir marka qayb kamid ah idin soo duubay si aad u aragtaan sidoo kale sawirkan waxa way artist badan Soomaalida ma fahansano ama qaarkii fahansan waxa laga yaabaa in zaid ilgooni ugu fiirin laakiin artistka ama halka sawir wuxuu turjumi karaa leeyahay kun dhacdo ama hal sawir oo artist oo la sameeyay ayaa waxa lagu qori karaa wax ku dhow kun book hal book ma aha laba book ma waa kun book laga qori karaa marka anaga badanaa Soomaalida artistka aad ay noogu yarta inkastoo maalmahan waayahan dambe wali waxa arkay xilligii markaas hadda sanadkan 2003 xilligii bandhigyada oo maalmaha xuriyada aad loo soo bandhigay waa aad ay u cajiib yihiin artistka waa wax aad loo baahan yahay artist marka dhaheynano ama fan isugan aadana guud fanka isuganka gabayaha aato ama sawir aato ama aad macnaha halkan sawir hadda waa u jeedaan xidiga ku sawiran qoraxa ku sawiran dabaqa ku sawiran waxyaabo kala duwan ku sawiran ma sawir waliba aragtid macno ka bixiya marka adiga macnaha asaartid iyo aniga oo arka macnaha saarno way kala duwan yihiin laakiin labadeena macno waxa ka sii duwan ninkii sawiray ama gacanaha ku sawir ama camera ku sawiray macnaha uu ugu fadhiyo waxan waayo isagu wuxuu ka fiiriyaa fikrad aanan anaga ka fiiriyeen ayuu asiga ka fiiriyaa marka sawir aad u qurux badan marka sawiradan ma ahan wax oo la iska sameeyo oo kaliya sawir ma tahay iska ma ahan waa sawir real life ah oo meel jiro la tago la soo sawir waay marka turkidana aad ay u xiiseeyaan sawiradan anigana ani ahaantayda fikir ahaantayda aad ay u jecelahay aad aan u xiiseeyaa marka adinkana waa idin u dhiirigeliyaa inaa fiirsataan sawiradaas oo kale sababtoo ah sawirada artistka ah badana adduunka hadda waxyaabo uu qaalisan kamid waxa maqlay hal sawir in la gaday 1 milyan oo dollar sawirkan laga baxshay 2 milyan laga baxshay dadku waxay leeyihiin 2 milyan ma sawir lagu qarash gareeha 2 milyan ma sawir ka bax madax ma dabka qaba waa inay dhahaan laga yaabaa laakiin ani ahaantayda 2 milyan ma qabo horto lacag saas u badan in laga siiyo ma qabo oo israaf ay noqday laakiin sawirka inuu qiimo yeeshto loo baahan yahay macnaha inuu lacag u qalmi karo ina isku waafaqnaa loo baahan yahay sawirka marka sawiradaas aan meesha ku aragnay oo quruxda badan hadana meesha kale waxa kale oo saameynta leh kamid ah oo daran waxa kamid ah meesha hadda ku jirno marka hore waxay ahayd kaniisadii ahayd jirto waxa waaye meeshii kaniisadii islaamka xoogiisii inuu xoogeysto ku soo kaniisadii meesha laga saarayo hadda waxa laga dhigay hadda meesha sawirada lagu soo bandhigayo dadka la tusayo maadaama dadkii markaasi rabay sawirka artistka inay imaadaan meesha u imaadaan macnaha kaniisadii loogu faa'iideystay artist ana loogu faa'iideystay oo jeedaan sawiradan qurux badan qolo beerley ah oo markaasi waxa waaye hooyooyin aad u duq ah oo kaleete qof meeshan fadhiyo oo waxa waaye baasha sameeyso qolo beerley ah oo beertooda iska fadhiyso oo jeedaan meeshan waxa waaye turkida aad ay u ixtiraamaan oo si Soomaalida ama dadka kaleeto Tuuriyeeyo waxa waaye ay aragti aan anaga aragti anaga dhaxayso macnaha ayaga laakiin ay saas ma ahan macnaha waxa waaye waxay leeyihiin waa diiniyan marka loo anaga eega in la isticmaalo xumaama waa taqaanan aayada quraanka ee tisalunaka maada uxila loo mudayba wuxuu soo qabta xalaal ay noo tahay hadii uu markaas uga qanin asiga oo waa la isticmaali karaa ugaarsan laakiin waxa waaye madhabkeena Shaafiiciga aad ay ugu fogeeyaan macnaha maadaama qofka hadii uu taabto soo qoyan ama adoo qoyan hadoo ku taabto 7 jeer in la dhaqo cara kamid ah iyo
shuruudo badan ay taalo marka saasa ugu fogaana anaga marka waa kana ujeedaan maamadaasne sidoo kale waa ujeedaan aqaartan dansiga ciyaarayso artist sameys kala kala duwan meesha lagu keenay marka saaxiibayaal meeshan quruxda badan aan tagnay xasuusan ka soo qaadanay sawiradan oo kaliya xasuusna maan videogan xasuus waayihiin sidoo kale aniga inaan video duubo YouTube ka soo geliyo sidoo kale xasuus ay tahay marna dhiirigelin ay tahay oo waxa waaye ibdaac cusub hadda bilaabay ama creative cusub aan bilaabay oo inaan video editing kaas galo oo wax soo duubo qayb kamid ah nolosheeda ay noqoto aadaan u jeclaa xaqiiqatan video duubida iyo video editing kareenta marka inaan arintaasi sii joogteeyo adinka ka qayb qaadan karo haddii aad share galeysaan videoga asxaab badan gaarsiisaan dhiirigelisaan anigana waxaa idin ballan qaadi karaa inaan xataa meelo kala duwan oo Turkiga kamid inaan tago jaamacadaha xataa inaan idin soo duubo jaamacadda si u shaqeyso facultiyada laga helo ardada si ay ku heli karaan oo kale iyo xataa waan idin la wadaagi karaa laakiin waxay ku xiran tahay si adinka dhiirigelisaan haddii aad garabkayga naqataan oo share iyo like badisan in badan ay daawato anigana insha Allah in badan ay idin soo gaarsi doona marka asxaab fara badan aan meesha isla wada imaanay adiga waxaan ahayn 70 qofood aan tiraan laakiin 60 wadan oo kala duwan ka imaanay 60 wadan oo kala duwan waa dareemi kartaa 60 wadan dadka kala imaaday hal meel ku kulmay kala dhaqan ah kala hidiyo dhaqan ah kala fikrad ah kala diin ah xataa waxa ay ku hadlayaan hadda oo ku hadleeno luqada ku hadleeno English ma aan Carabi ma aan af Soomaali ma aan Faransiis ma aan waxaan ku hadleeno waa af Turki taasina waxay qayb ka tahay horumarka oo rabo Turkiga inuu sameeyo oo luqadiisa uu ku horumariyo ardayo sanad waliba soo qaata wadamo kala duwan afarta jiho adduunka oo soo qaata wadankiisa oo keena oo qarash gareeya oo maalgeliya wax kala maan waxa waaye ardadaasi waxa loo baahan yahay in luqada Turkiga horumariyaan hadda luqada Turkiga waxa la dhihi karaa luqada labaad ee adduunka ugu badan inay noqoto macnaha Koreansha hadii la dhaho Ingiriiska hadda ugu badan Koreansha ku hadalka ma hadleen Koreansha si u socoto ayaga way horumariyeen luqada midda labaadna luqada si uu qofku barto waxay sameeyaan shan buug ay ku soo koobeen luqada dhan qofka 3 bil markuu joogo bajaa af Turkiga uu ku hadli karaa oo bilaaban yahay haddii uu 5 bil 6 bil 7 bil si toos u qaatana wuxuu uga hadli doonaa si fasiixa ayuu uga hadli karaa marka waxay leeyihiin ayaga macallimiin ama cilmi baarayaal ka shaqeeyo haddii jeer lacag ku qaato si luqadan loo horumar lahay marka dabcan anagana waa u baahanahay af Soomaaliga inaan saas u horumarino naxwiisa hadii ahleed anaga Soomaalida badan naxwihi ma naqaan af Soomaaliga inaan naxwihi barano luqadan saas u horumarino uma leeyahay Soomaali oo waxa waaye waa adduunyo kale taa ka dhimanay Soomaali oo min xadad inay siisay oo imaaday oo Soomaali af Soomaali barahayo waa adduunyo kale marka ciwaanka yaana ka bixin meesha ku soo laabano meeshan aad joogtaan aydan hadda idin tuso waa meel taariikhi meeshan aad jeedaan waa masaajid waaye dhulkan masaajidka hoostiisa waxa ku yaalo meel oo mugdi ah waa gali doona video waa idin soo tuso doona waa idin daba gali doona meesha hadda waxana ujeedaan waa xabsi ah jirto marka hore saas waa ujeedaan xabsi ah jirto dadka lagu ciqaabi jiray hadda irda la xiro ujeedaan Soomaan mugdi waa hadda qolka irdu ka xinay macalinka irda naga furay marka macalinka maadaama uu irda naga furay aniga waxa dhahay macallimo YouTube kala kiciyo YouTube duwa marka wuxuu yiri adiga iyo harwa lagu baahan yahay macalinkan arkaysaan waxa waaye sawirkiisa da aragtaa muuqaalkiisa inuu daah waa laga yaabaa laakiin wuxuu noola kaftamay macnaha tiknoolajiyada anaga nooga badiyay iPhone ala watay videoga editinka waa xiriyaa afwan ustaad naga furay markaas uu xiraaya gabar soo gashay marka gabadha markay soo gashay waa ka furay asxaabtan kale 10 loo galay maadaama meesha yar tahay marka 5 daqiiqo oo qofku ku jiray ama 5 daqiiqo waxay noogu filnayd bismillaah ilaahu qabriha nagalin hadii aan nagalisan aan ugu cadaabin waxay noogu filnayd ciqaab noogu filayd marka waxa soo galay usun adam yarkan saaxiibana ahay Nigeria oo soo jeeda marka waa la xiraa fiiri waa la xiraa ujeedan Soomaan saasi mugdo oo noqonaysa sidoo kale meeshan xabsi oo kaliya loo isticmaali jirin sidoo kale waxa loo isticmaali jiray meeshaas oo ujeedaan Soomaa meeshaas dulasho macalinkana tusooyo hawa ka soo gali jirtay qofka maadaama caburmi karo hadii meesha lagu xiro marka meeshan hawana way ka soo galaysaa number 2 qoladan sawir iska kala kiciyo iyo video xasuus ay ka qaadayaan marka gabadhan oo ujeedaan ayadana boosna hirsay ka soo jeedaa aqaartan dheerka saaxiibkeena ujeedaan Kirgistan baysha Allah sigana yarkaas barasho wanaagsan marka meeshan sidoo kale waxa loo isticmaali jiray i'tikaafka Ramadaanka dadka markii jooga inay imaadaan meesha ku i'tikaafi jireen oo Ilaahay ku caabudi jireen xilliyada Ramadaanka si ayna u mashquulin marka meeshan video aan quruxda badan ka soo duwanay sidoo kale meesha salaad ku soo dukanay waa taqaanaan mar wali dadka markay safar galaan waa la soo daalaa waa la tacbaana waxa anagna sidoo kale waa soo daalnay marka soo daalna wax yar meeshan fariisan meesha geeday lahayd meeshan wax yar fariisan adina arki doontaan meeshan quruxda badan buura ku araysa mujeedaan buurtaas dhinaceeda midig calanka Turkiga ka taagin Turkida waxyaabaha aad ku cajiib kale oo ku arko waxa kamid ah sidoo kale ayaga calankooda meel waliba uu ku dhagan yahay waxa dhiman bis musqusha in lagu xiraa dhiman qolka ilida sawirta korkeeda meel waliba oo tagtid calanka Turkiga waa yaala taasina waxa waaye
psychology ahaan dadka saameynaysa qofka waxa uu kala laabto waa taqaanaan xayisiinta oo kale si nagu soo gaarta way nagu soo laalaabataa way nagu soo laalaabataa kadib caadiga la qabeynaa waa la qabsaheena oo maskaxdeena degaysa marka u jeedaa meeshan asxaabta fadhiya video waan ka soo duubaynaa fadhiisteen kadibna waxaa sameynay wax yar maadaama aan soo daalnay wax yar cunta afka geli doona insha Allah adinkana niyeysta labis inaa cunaysiin ama inaa cunteen nala niyeysta anaga waa idin cunayna wakana yarki saaxiib waan ahayn uzun adam ama uzun adam marka dheena magaciisa Cabdirasaaq waay laakiin uzun adam waxa ka wadnaa macna tolman ee dhan turkidu isticmaalaan ama qofka dheer waa ninka ugu dheer marka haddana ninka ugu dheer ahayn waa fasalkeen ninka ugu dheer wahay marka waxa cunayna waa rooti adiga camal alaab ah oo dhaxda laga geliyay qudaar iyo dooro dhaxda laga geliyay yarkan Mauritania waa yarkan Cabdijabaar waa asigana dad video bilowgiisa soo aragnaa hadii aad xasuustaan marka meeshaan aan fariisanay wax yar xoogaa afturka ku sheekaysayna anaga waa isku caamirn waa iska kaftanay asii Cabdijabaar iyo usun adamka xoogaa ka kaftameen marka videogan adinkana idin soo gaarsiiyay waa cunay marka meeshaan cunay alaab waxa la dhahaa islaan Turkida wax waliba horta Turkida sidoo kale dadka guud waxa kamid ah wax waliba ducaa la socoto kolay galsin Allah ku fududeeyo kale taafiyad ulson caafimaad ku cun waxa waay anaga Soomaali warniyo nasi balaa ku arki weysay qabac qajacina dhan waa laga yaabaa yarkaan aan soo fariistay asigana waa ka asigana ogaa inaa YouTube duubayo asigana naftirkiisa Instagramer waaye Instagram-ku aad u xiiseeya marka waa kan asxaabtii waa soo baxnay oo waa soo daalnay waa la soo qaqadiyay marka xilli gabagaba la maraa asxaabtii videogan ka soo duubay marka xariifkaas waa idin salaamta ka qaada Afghanistan idin salaamay gabar kale ta idin salaamtay Jazaa'ir idin soo salaam marka asxaabtaan wadamada kala duwan kala imaaday ana salaanta idin wado marka adinkana salaanta idin dooma videoga hal share gareeyo asxaab kale ta la gaarsiiyo hal dhiirigeliyo saaxiibo macluumadeeda waa qoftan labadan waa macallimiin waaye macallimiinteeda waaye oo luqadda naga dhisa waaye marka waa kana meeshaan asxaabtii waa la soo wada daalay oo ujeedaan socodka waa ka dareemi kartaan sida tacbaan loo yahay oo loo rafaasan yahay salaam calaykum wacalaykum salaam waa idin qaadnay saaxiibayaal waa idin qaadnay marka macallimiintu waa qaartan dambeysana waa kana hore haddana ka soo maray dhag videogana maadaama ay qatim tahay videogan quruxda badan ayadana ku soo qaaday marka waa idin raalgeliyaa videoga hadii uu idin qanci waayo ama hadal qaldan aan dhaho ama wax aan idin qancin aan dhaho waa idin raalgeliyaa ama videoga idin ku dheereeyay maadaama vlog koobaad uu yahay waxa laga yaabaa in videoga aad u dheereeyay naftirkeeda waa iska macquul waliba waa u badiha marka wadada ku soo laabanay meeshaan ayuuna vloggeena ku eegyahay marka waa mahadsantii videoga hal share gaar asxaabadan hal gaarsiiyo meeshaan aan ku soo gabagabeynaa vloggeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.